السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. kusoo dhawaada cinwaankan aad arkaysaan, meel aynu uga soo wada jeesanno cadowgeena, meel aynu uga soo wada jeesanno cadowgeena insha allah. way hadda maxay toos ayaad facebook iyo meel ku soo gal daawanaysaan, laakiin waxa laga yaabaa inaad ma dhowto ka daawataan meelo kale, youtube iyo facebook iyo kale. maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha 9 2017 iyo 12 dilxija 1438 hijriya. haddaan bilaabo ugu horeyn haddaan maxay bilaabo waxa weeye aan ku bilaabo maxay walaalkeen الأسير محبوسكي لليبي قلب دقح. هدان كو بلابو يديمو عن هاي هراء عن صومبر دقي وهاي يا ديبي قلب دقح، يا لو ديبي محلو ديبي. جواباسي حوي مالمهن أيين هاي جوابود هلني سؤالها جوابود مالمهن أيين هلني wax rasmi ah waxaynu helay wasaaradda warfaafinta Ethiopia oo ka jawaabaysa weydiimaha oo sheegtay in lagu soo wareejiyay qalbi dhagax oo ay ku soo wareejisay dawladda Soomaaliya. maxaana loo wareejiyay? waxaana lagu soo wareejiyay heshiis dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia. waxa weeye waa sida iyagu ay sheegayaan ilaa iyo hadda. يعني محاي دولة الصومالية محاي كمي جوابين ولي أفكا أيو حران ولي وانسوينا، لكن وحاوي مهمسن إن محاي وديمه لقى جوابي تاس أو يعني ضد بدنا يشكي وجترين أو حتى أنا جن وجتري، لكن واحد لبودي إن محاي قلب دقة على ديبي. ليبستيسن waxay noqotay mutawaatir aw mutawaatir. waxa weeye yani way badatay ba marka oo aad bay u badan tahay waxyaabaha wararka naga soo gaaraya in walaalkeena madluumka dhibana la diiday. طبعا waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye waynu cambaaraynaynaa, waanu ka xunnahay, waanu ka soo horjeednaa. waa fal aad iyo aad u fool xun in walaal Soomaaliyeed la dhiibo oo ay dawlad Soomaaliyeed ay dhiibto. waxa weeye aad iyo aad baan maxay u cambaaraynaynaa. waxa weeye waa fal madow, waa taariikh madow, waa dhacdo madow, waa wax maxay runtii aanan wax cudur daara u raadin karin. waxa weeye ciddii dhiibtay waxa weeye waxa aad u muhiimana waxa weeye qofka xaqa markuu wado in xaqa lagu raaco, markuu baatilka la yimaadana in laga soo horjeesto. waa muhiim oo la yiraahdo kuguma raacsanin. allah ayayna weydiinaya, taariikhda ayayna weydiinaysa, oo kadib marka falalkan oo kale aynu ka aamusno waxa aynu ka aamusi karnaa maxay falal badan oo fal. marka waa inaan xaqa la wareegnaa meesha uu xaqu maxay u wareegi. aan guda galo qalbi dhagax maaha qofkii ugu horeeyay ee Ethiopia loo dhiibo.
qalbi dhagax maaha qofkii ugu horeeyay ee maamul Soomaaliyeed u dhiibo Ethiopia waxaynu ognahay in dad badan oo hore yani la dhiibay oo ay maamuladu dhiibeen waa macruuf waa la og yahay wax aynu la qabsanay muxuu ahaa waxaynu iskala qabsanay oo ay noo noqotay muxuu ahaa caadi noo noqotay oo ayna muxuu ahaa aynu ka damqanayn ayuu noqday marka laakiin waxa weeye maamuladu hore ay u dhiibi jireen maamulada Soomaaliya si madax banaan ay muxuu ahaa walaad mucaamilaan muxuu ahaa Ethiopia ma dhageystaan muxuu ahaa dawladda dhexe ee Muqdisho heshiisay muxuu ahaa la soo galaan haddii hel lahayn heshiisyo caalami ah oo gali lahayn laakiin Ethiopia waxa weeye heshiisyadan iyo muxuu ahaa qoladan ay marba la shirayso waxa weeye waa kala qaybin oo ugu tala gashay in muxuu ahaa meeshaasi ay jiraan muxuu ahaa taqaas hadiyado ayay u geyn jireen markay doonayaan in Ethiopia muxuu ahaa ka farxiyaan ninka Soomaaliga ah ee madaxda ahi markuu doonayo in Ethiopia muxuu ahaa ka farxiyo waxa weeye waa in muxuu ahaa qof Soomaaliya u dhiibaa oo aan waxba galabsan aynu soo noqonayna muxuu ahaa dad badan oo mujrimiin ah oo soo noqonayna waxa ka oran doonaa dhacdadan aynu muxuu ahaa dhinacyo ka eegno dhinacyo badan ka eegno dhacdadan muxuu ahaa dhiibitaanka walaalkeen qalbi dhagax aynu muxuu ahaa dhinacyo ka eegno qalbi dhagax waxay u muuqatay sheekada qalbi dhagax haddaynu sheekada akhrisano inkastoo aanay muxuu ahaa dawladda aanay noo jawaabin laakiin haddii aynu akhrisano oo aynu bal siyaabo kala duwan u akhrisano waxa weeye waxay u muuqatay khalad weyn oo ay galeen muxuu ahaa dawladdu ay gashay oo laakiin loo soo maleegay loogu tala galay inay ku dhacdo marka waa dabin loo diyaariyey loo qorsheeyey in ay xukuumaddani ay ku dhacdo si ay u lumiso kalsoonida shacabkeeda wuxuu ahaa laba shimbirood oo hal dhagax lagu dilayay waana ku guuleysatay muxuu ahaa Ethiopia laba shimbirood ayay muxuu ahaa hal dhagax ku dishay Ethiopia mid waxa weeye dhiibista walaalkeen Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax midna waxa weeye xukuumaddii shacbiyadda badan lahayd madaxweynihii muxuu ahaa sida weyn loo taageeray in muxuu ahaa shacbiyaddii ay lunto waana dhacday xaqiiqatan waxa weeye dadkii aad ayay u xanaaqsan yihiin aad ayay u gadoodsan yihiin aad ayay uga xun yihiin marka waxa weeye ujeedka ay lahayd jabka ay maaganayd Ethiopia way heshay waana ku guuleysatay ilaa hadda ciyaartu way socotaa waxayna maraysaa muxuu ahaa 5-0 shanta waxa la Ethiopia marka waxa weeye dabin si macaan loo soo diyaariyay oo laga soo shaqeynayay muxuu ahaa 6 bilood ay dawladdu jirtay oo laga fakarayay ninkan shacbiyadda leh ninkan muxuu ahaa gumaysidiidka ninkan Ethiopia ka soo horjeeda ninkan sideeban u fashilnaa qorshahana loo dhigay waxa la adeegsanayay maamul goboleedyada la adeegsanayay waxa la adeegsanayay mas'uuliin ka tirsan muxuu ahaa dawladda la adeegsanayay waxa la adeegsanayay xildhibaano ayaa la adeegsanayay ka tirsan aqalada waxa la adeegsanayay shakhsiyaad aan dawladaba ka shaqeyn aan fulintana ku jirin sharci dejintana ku jirin garsoorkana ku jirin oo laakiin waxa weeye u shaqeeyay wardoonka Ethiopia iyo sirdoonada caalamka u shaqeeya waa kuwa aynu maanta u fadhinaan doonayna inaynu farta ku fiiqno aynu iska qabanno waa musiibadan doonayna maanta inaynu iska qabanno daa'iman innagu waxaynu ku baraarugnaa natiijada aynu ku baraarugnaa oo aynu ka qaylinnaa falkii markuu dhaco ayaynu ka qaylinnaa laakiin asalkii halkeeba mushkiladani ka timid ma ahay waxa weeye ma soo dabar goyno ma jarno ma daaweyno laba ogee waa afarta ayaynu eegnaa laakiin afartan xaygay ka timi waxay ka timi labo ogee marka laba loo geeyay ayay afar timi waxa weeye marka natiijada ayaa afartan baynu eegaynaa mar kastaba laakiin maxaa u sabab ah in heerkaas aynu gaarno waxaa u sababa dadkaas maanta dabinka geliyay xukuumadda ee u sakhiray waa sidaynu akhrisanayno waxa weeye dhowr siyaabood baynu akhrisanaynaa waa si ka mid ah siyaabaa loo akhrisanayo aniga waxa weeye dabcan qof kasta oo Soomaali ah yani ilaa iyo imika waxa ka daadagila
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa nin Soomaaliya u dhiibay Ethiopia oo inaga daadegi lahayd dhamaantii qof kastaba wuxuu jecel yahay bal inuu hor istaago barsaasha inuu weydiiyo madaxweynaha sidan ma dhacday maxay u dhacday marka waxa weeye dhamaanteen waxa weeye wayna la weynaatay dad badan oo inaga horeeyay madax ka horeeyay maamul goboleed ka horeeyay dad ka horeeyay wax dhibay nagu maahan hadii wax dhiibaan hadii wax biinayaan laakiin maxamed cabdilaahi farmaajo gaar ahaan isaga xukuumaddiisa iyo isaga laga ma filayn in qof Soomaaliya maanta halkan laga dhiibo oo loo dhiibay Ethiopia laga ma filayn taas ayaa maxay runtii maxay weynaatay haddana laakiin qofkii ilaa iyo aad aragtid ilaa iyo marka wax rasmi ah oo ay soo baxaan waxaan doonaynaa bal inuu maxay jawaab cad inaga siiyo waxaan isleenahay waxa weeye waa dabin loo maleegay waxaan isleenahay waxa weeye dadka agdhow oo la taliyayaashiisa oo madaxda la shaqeysa ayaa u sakhiray u fududeeyay qaab khaldan ugu fududeeyay oo yidhi waxa weeye hawshu sidan iyo sidan iyo sidan ay noqonaysaa haddii saas sameeyno qaabkaas ay noqonaysaa saas ay noqonaysaa waxa weeye arrinkii waxa weeye uu ka hoos baxay marka isku soo wada duubo markasta mas'uuliyadda isaga ah qalbi dhagax ogaansho la'aanta farmaajo kama bixin xamar loogama saarin diyaar qalbi dhagax ogaan la'aanta farmaajo looma geyn Ethiopia qalbi dhagax ama farmaajo talaabo la socdo laakiin talada khaldanay laakiin talaabo la socdo waayo dadkaas waxaan doonaynaa marka sheekadu si ay u dhacday waxa weeye inuu isagu inoo jawaabo ama aynu raadsano aynu jawaabo helo laakiin mas'uuliyadda isaga ay saaran tahay si toos ah isaga u saaran tahay cid kale aynu saarayna ma jirto isaga maxaa mas'uuliyadda qaaday waa inuu inoo sharaxaa ciddii khiyaantay waa inuu inoo sharaxaa ciddii dabinka dhigtay waa inuu shacabkiisa la hadlaa mushkiladda inay haysataa xukuumaddii aamusku danu maaha inay aamusto xukuumaddu danu maaha xukuumaddu waa inay hadashaa oo ay shacabka la hadashaa oo ay tiraahdo war saasaa dhacday war sidana dhacday xukuumadda marka leeyahay waa madaxweynaha ka hadlaya madaxweynuhu dadku isagay hadal hayaan ma hadal hayaan dadkan kale waxa weeye iyagu may dooran dadkan kale waxa weeye maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa musharaxa isaga loo dabaaldegay isaga loo hanweyna isaga lagu faraxsanaa dadkan kale dad madaxweynuhu isaga keenay dadkan kale dadka waxba kama gelin ninka maxaa mas'uuliyadda ay saaran tahay waxa waa isaga waxa dareen baa igu jira anigu cudur daari maayo ilaa hadda ilaa aan kala jawaab waxa dareen baa igu jira waxa maxamed inaanu arrinkan isagu 100% qaabka u doonay waxba jira qisada waxa ku jira mugdi baa ku jira humaag baa iga jira waxba jira kale filmaanta ma daawateen mararka qaarkood qisada saad isleedahay qof baa la dilaya markaasa baaritaan baa la sameynaya waa aflaanta oo kale qof baa la dilaya marka qofkii dilay ayaa baaritaan loo sameynaya markaasa marba sida filka u daawanaysa wallahi kana dilay wallahi tana dishay wallahi kaasa dilay aakhirka filimka gabagabadiisa waxa soo baxa qof aan laga filaynba si aan loo filaynba wax u dhacay marka waxa rajaynaynaa inay maxaa natiijadu inoo soo baxdo laakiin waxbaanu islaamnahay waxbaa jira weyn ayaa jira wax weyn baa jira ilaa iyadoo ay saa tahay waxa weeye mas'uuliyadda ka fogeyn mayno maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha mas'uuliyadda ka fogeyn mayno isaga mas'uul ka ah in cabdikariim qalbi dhagax halkan laga qaado oo Ethiopia loo dhiibo dhiibistiisu maxay ka dhigan tahay qalbi dhagax dhiibistiisu maxay ka dhigan tahay dhiibista qalbi dhagax maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood dhiibistiisu waxay u dhigan tahay dil oo kale in la dilay sidee aan ku sheego marka loo dhiibayo qalbi dhagax meel aad og tahay in lagu dili karo waxay u dhigan tahay in la dishay oo kale qalbi dhagax waa disheen sababtoo ah waxa weeye waa lagu laayaa jeeralka waa la khaarijiyaa muxuu ahaayey dadka ku mucaaradka Ethiopia waa lagu khaarijiyaa jeelashada waa macruuf cuhuda caalamiga ah dadka noocaas oo kale meelaha halista looma dhiibo sharciyo caalami ah qofka qabanaya sharciyo ilaahi ah qabanaya wax maxay maanta maxay banaynaya ma jiraan meel aad og tahay qofkii in lagu dilayo ama lagu jirdilayo lagu tacdiibinayo oo ka daranba dilka
إن أدور ديبسيد وحاول يجنتها إن ما هي رالي كتها إن فلك على الجسمي مركب هو ديبس تقلب بتاعه وحاول يجنتها ما هي دل أكله إلا الدل هي أكله وهي هاي محينو كأخر سنة ناكل ديبس تيسا وحينو أنو كأجا إن قلب بتاعه سأودي عكرتها إن لو ديبو إثيوبيا إسقى كم دها أما حبين كم دها سركال كم دها عيدا كحوج الصومالي كان قيب قلي دجالو كردنا إثيوبيا سلو دي بكرة مواطن صوماليا سلو دي بكرة دولة أولي بقى دولة سلو دي أولي بقى تدريب يسوى معي وحوي ودولة دي مقدشة يا لقدي بيه وحوي وعار وعيب وجريمة جريمة تاريخية وحوي على جبين الحكوموي وجريمة دوي وجريمة مكتملة الأركان أي تركز ما هي دمسترين وحوها يعني حبين أيها عيدا كحوجة اسكدا عيدا نمدي اسكدا وحوي وقف صوماليا سأقول لي بكرة مركا سأقول لي بكرة مال قد لي ويا حلقة يا بعين أي صباح ضوء وين يشلو هشيسيو هشيسيا ده هو شرها هشيسيا ده هو شاقة هشيسيا ده قيحة أو حوي إثيوبيا هشيس كاسان نقدر عيا أوجادا لكن هشيس ما هي هوساس وقرتين يعني معقول ما سورة قلمة هشيس ما هي مربع ما سقف لا ما يقف كوكو قبل إنسان سورة قلمة ليالي ماي ضدك وحنو شيء حكومة محمد عبد الله فرماتي وحي حقا يوضو هل لو تاغيرو ما انت اي ليحتو اي حق دره لا تيمادو هل لغا سو هرجيستو ومركي باطل لا تيمادو ولا لغا سو هرجيسنيه لا معصيه لمخلوق في معصيه الخالق رسولك صلى الله عليه وسلم بكسغناتي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني حويه يعني ادونك wax lagu caasiyo oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam wax Allah lagu caasiyo adoonka lagu ma adeecay adoonka lagu ma adeecay wax Allah lagu caasiyo waana dulmi Soomaaliya waxa burburka keenay awwalba waxa burburkan keenay ay dawladii dhexe ee Soomaaliya ay u burburtay ku 1999 waxa weeye waa dulmi barka kale u geystay وأين ولي أن ما هي سقرين والظلم الله يحيي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سورة الكهف وحوية آيات كإله حكوت المامية إن يعني مقالوينك تولوينك ديغانك إلهي ظلمي إلهي هلاقين راضي إلهي هلاقي مركي ظلم لي معدين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وحوي عدة وحنو هلاقني مركي أي ظلمين ومركي وحوي قلب دقح يالا يا ريسن يينا ما هي ودبالدقين إيدا يينا ما هي راحيسن يينا نسفي عنو سيحن قلب دقح وحول أمديه أمد نبو أمديه لمديه وحوي وحول دقيه هاي قفلة دلا إن أمد أو دن لا أيودقما قلب دقح وحول دقما الصومالي أو دن بودقما قلب دقح وحول دقما الصومالي أو دن بودقما مركا ما يريسن إنه وقنا عذر دار من حكومته مدحوينها وقو عذر دار من هشرح وحن دريم إن إني وحجران كلا وح أنا نوجينه كلا إني قرصوين باكرة مدحوينها نشرح وحن دريم يا إن دبل لو دياري بن دريمية وكل عسيف ضد داعي أنا كفير سن ضد كو هاريسن ضد لتليال كم مجعابا ضد كأجدو ضد ما هي حكومة كتير سن أو سيخل دن وحقول ترتمي كرا سيخل دن وحقول ترتمي كرا وناك بنكوه جدنك إلا يهدى وناك بنكوهنا إلا ونشره وجهة نظر كيسة وناك بنكوهنا ضد كوير مينو أنا ما هي كبحان وير مينو oo ay ku kacaan laakiin falka inay ka soo horjeestaan ayaan weerina falka inuu foorxun yahay in falka dhamaan la wada diido aan raali lagu noqon ayaan ugu yeedhay dadka isaga waxa weeye iyo madaxduba ha sharaxaan gaar ahaan isagu ha noo sharaxo waxa weeye qalbi dhagax wuxuu dhigmaa ummadda oo dhan Soomaali oo dhan buu dhigmaa dib aan idinku celiyo
عبد الملك الشيخ مسعود دون أنا يريد كتابته أو أرن لحد أرن كان أو كهول قلي وحنو سميني وعي قليل إلى توس أنا جاي صاحب بضي وحنو كأساس إني برع توس وجيت كده محوها توس كده مركان أرجني لقر بدن أو عدو ليجا يا سومالي لان قارهان إثيوبيا أي ليجا يسوع أن دريني ما داموا أي لبضة كوني اللي حدها كان صار عنطي أي فرجليكو هاي سبحان الصومالي هل كان مقدشكو هاي صو أي واحد من السنين الصومالي أنا وأوصى صعود لكن وحوي وأوصى قسليسا أو حوي مربى وأوصى قبانيسا ويصو صعودا أفكي صوك الله هيسا مركا ورابها يور يعني أوش هذا ضدكوا إنه يور كويل هذا نوع سكيل عليها توص بانو سميني وحانو كيل علينا إني ما هي نصالح كشو أنا جاي حكومة يدي شعب كي إني ما فرجلين ويا ربطه waxaan ka shakinay inay sahan wado xitaa sahan ma ciidan oo military qolo la bedelayaal aad baan uga shakinay runtii nimanka bedelayaasha reer filmaanka gaama baan markaa sameeyay oo wacyi gelina waxaanu ilaalinayna dalkaygaanu ilaalinayna dhulkaygaanu ilaalinayna magaalooyinkaygaanu ka ilaalinayna Ethiopia marka waxa weeye Ethiopia diid ayaanu hay waxaanu ka soo horjeednay in ay annaka maxayna farageliso waxaanu ognahay damaca Ethiopia ka haya dhulka Soomaaliyeed oo dhan dhulka Soomaaliyeed oo dhan damaca weyn ka haya طبعا waxaanu ognahay Ethiopia inaanay doonin dawlad adag oo la jaara ma doonayso dawlad jilicsan bay doonaysaa dawlad ay si dhinacay doonto u jeedisay doonaysaa Ethiopia ma doonayso dawlad xoogan waxaanu ognahay Ethiopia sidoo kale inaanay bad haysan waxay doonaysaa marka inay baabi'iso oo ay istiraatiijiyad 20 sano 30 sano 100 sano 50 sano sidii ay u qabsan lahayd dhammaan dhulka Soomaaliyeed qoloba meer bay maxay kula shiraysaa Somaliland gaar bay ula hasaawaysaa Puntland gaar bay ula hadlaysaa maxay maamulka Muqdisho gaar bay ula hadlaysaa qolo kastaba gaar bay ula hadlaysaa qolo kastaba si gooni ula macaamisha ma diidanin maxay xiriir wanaaga kow ana ka in jaar wanaagsan maxay la ahaado ugu baaqayna dadka maxay in la dagaalamaan Ethiopia hadii ay jaarnimo wanaagsan maxay laga heliyo macna ma doonayno laakiin waxa weeye waxaanu leenahay dhagarteeda ayaan iska ilaalinayna dhagarteeda maxay faraha ku fiiqnay dadka iyagu ku toosa aynu iska ilaalino reer Soomaaliland aynu iska ilaalino waxa weeye badalayaashin wax kale wada aynu iska ilaalino يعني maxay inagiiba inoo sheekan dhigtay inay walaalayno maaha Soomaaliya ayaa walaala nidaamkiina iyo maamulkiina iyo dawladdiina haysta reer Soomaaliland ayaan ku niri kama soo horjeedno nabad baa ka jira horumar baa ka jira dawladnimo ka jirta waxa weeye wayna farxad gelinaysaa wallahi marka waxa weeye markaanu dagaalka ku qaadnay Ethiopia waxay noo fakartay sidii nooga takhalusi lahayd aniga iyo asxaabtii la shaqeynayay ee toos ee filmaanta wacyi gelinta sameynayay maxay sameysay markaa waxay sameysay kaarto ah sidii ay shacbiyada iyada ay dhulka ku masixi lahayd iyo waxaan wadno say dadka shaki u gelin lahayd marka maxay sameysay waxa ay u daartay laxan ah Cabdi Malik Musaacid wuxuu ka soo horjeedaa Somaliland wuxuu wadaa Soomaali weyn arrimo noocaas wadaa يعني qarannimada Somaliland buu doonayay inuu burburiyo waxaasna waa been أنا runtii maxay يعني iskuma taxallujin inaan sharaxo waxaan doonayo waxaan salaamahay inta aqliga leh ha ku fahanto laakiin way ku guuleysteen in ay dadkayga galiyaan reer Somaliland inay yiraahdaan Cabdi Malik ka soo horjeeda hadda reer Somaliland ka soo horjeedaan waxa ka soo horjeeda maxay Ethiopia ka soo horjeeda marka waxaan doonayaa inay munaasabadan ay fahmaan reer Somaliland inaan Somaliland ka soo horjeedin laakiin cadawga Somaliland aan ka soo horjeedo يعني runtii anaku ma wadno waxyaaba ka dhana maxay Somaliland dadku waxay noo maleynayaan inaan wadno maxay mideynta Hargeysa iyo maxay Muqdisho walaalayo mideynta Hargeysa iyo Muqdisho يعني maxay oo xasaasiyad badan leh ognahay ayaa anaku ma wadno taas laakiin waxaan wadnaa waxyaabo xaqiiqatan يعني كوين ayaan wadnaa oo dhagarta يعني cadawga Ethiopia ee u cadawga maxay Somaliland ee u cadawga dhulka Soomaaliyeed oo dhan ayaan maxay farta ku fiiqayna marka waxa weeye maadaama arrinka loo sheekeeyo qofka reer Somaliland qofkaas wuxuu wadaa Soomaali weyn xasaasiyada ay taagan tahay meesha ay naga soo galeen Ethiopia halkaas meesha ay naga soo galeen
أنا كنا كاسين قلنا حنا الوريا كواسي وحويه وعدوجين كواس أينو ما هاي شارونات أينو يالنا كواس أينو كلا نظام يالنا سب احترام له يالنا تعاملنا ضمع يعني إنه هنقولين أنت اسمه وضنا إلا يهدب ما أنت أس أيام وضنا مركب حويه تاس هذا يلوسون قلنا ما هاي المملكة القبلية الصومالية المملكة القبلية الصومالية قار كميدا وحيكون عام بحين إن يدتك الديبان إن إثيوبيا 6 توصة ولا معاملان إن أنا كذا جيسن ما هدول ده مركب حويه تالفتيدا ضد بدني مو هاي ما يدمقين كأنه وين لقب صني يعني هو إن ما من قبلات ما كتر سن صوماليا أو ديبو وقف ديبو حين نقطتين مو هاي يعني وحس كشيء مو هاي طبيعي يسكن نقطة وحس كعادي لكن فرماتشو مركو سميه ويناتي سببتنا وان شيء واحد لو ويناتي مدبان عنو مو هاي دين شيء مدبان دوني هذه الشيء وأنا قلت لبا أوجي وأفر سماه أفر تانيين هين إلا كنا إنه لبا أوجي الأفر تانو حكيت من لبا أوجي إن هيك اللي جارو إثيوبيا توس أي نوسو فرجليسو أو أي ما أي جعان نوعية لطو أي جعان كويه لطو أو أي ساو فرجليسو ما هي الصومالية يقولك الصومالية دولنا أي ساو فرجليسو وح شراء رج الله شقية oo aynu doonayno inaynu cadawgeena meel uga soo wadasiisano dadkaasi waxa weeye waxa la safayeen Ethiopia dadkaasi waa cadawgeena waa dad Soomaaliyeed oo ah cadawgeena saaynu ku fiirno ma hawlaaladeen sababtu ah waa Soomaali Muqdisho kula jooga ciidanka laga yaabo inuu kamid yahay wasaaradahu kamid yahay xildhibaanadu kamid yahay shacabka caadiga kamid yahay ganacsato kamid yahay laakiin waxa weeye cadaw Soomaaliyeed oo Ethiopiaanka iyo sirdoonada caalamka la shaqeeya waxyaabaha yaab kale aan ugu Muqdisho waxa kamid waxyaabaha yaab kale ee aan Muqdisho ugu waxa kamid oo maalmahan xataa la hadal haya maalmahan waxa la sheegay ragga ka dambeeyay qalbi dhagax dhibistiisa waxa kamid hebel iyo hebel kuwaas ragga qalday waxay kuwaas in waxa u shaqeeyaan Ethiopia ayay u shaqeeyaan bay leeyahay wadad waa la sheegay waxa kaas Ethiopia u shaqeeyaa Ethiopia wuxuu leeyahay waa sheekada iga yaabsay يعني مو حقي سومالان مركن جوجي ما مقلين جرين قف كاس إثيوبيا ولا شقية توس صراحة ما مقلين جرين ما ضحت ما هي سومالان عيدنك شعبك قف ليت المملكة إلى كاسي وحول شقية ما إثيوبيا معروف أوضتكم أي أوجي مجرم لكن مقدش مركن يبغى يابد لي وحلا يقول الوار كاسي وحول شقية إثيوبيا كان يستدان ولا شقية وعادي كاس ما هي سردون كعالي ولا شقية ويا marka waxyaabaha runtii aan maxaa ku arkay halkan dadka aad aragteen oo aad ka sheekeynaysan ee aad leedihiin waxa weeye qayb waxay ka ahaayeen in qalbi dhagax la dhiibo dadka iyo kuwa kale badan oo ayna maalmahan soo qaadin aad ogtihiin dadka noocaasa ayaa maxaa Soomaaliya burburiyay dadka noocaasa ayaa doonaya inay xukuumadana burburiyaan oo haday doonaanba dabi kaaba galiyay xukuumadda farmaajo marka dadka noocaasa oo ah sababtii aynu dadka iska qabanno aynu dadka farta ku fiiqno aynu bilowno oo la ka dhana kuwa aynu kuwa ma iska masaxno oo tirtirno uska ma chlorox ku meedno dadkaasi waxa weeye aynu farta ku fiiqno waa khawana waa mujrimiin waa dadka dhiibaya weeyaan waxa weeye dadka farta lagu fiiqo hala soo qoro magacyada soo qora waxa weeye hala baaro xog hala baaro aynu ka shifno dadka oo dhan dadka xitaa og ee mas'uuliyadda oga ha hadlaan ay dhaadaan kaas waxa weeye waa caamiil waa ka shaksan dadka loo sheego bulshada loo sheego munaafiqiin baa jirtay xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam lama ogeyn laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam baa oga iyo kii saxaabigii sirta nabiga sallallahu alayhi wasallam qori jiray Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam labadooda isla oga wax bashar imika yaa munaafiqiintiino yaa cadawii inoo og inuu jiray la ahad yaani waxa weeye walaalayaal waxa weeye wallahi waa jariimad waa wax laga ilmeeyo waa wax laga damqado in qof soo taagano Soomaaliya loo dhiibo baalkii maahay Ethiopia aanu soo noqday dibtay leedahay anigoo Cabdi Maalik
انت هرجيسه كي ماده برعك ماده توس مركز توحن ماده مقدشو waxaan awoodi kari waayay inaan maamul goboleedyada tago runtii maamul goboleedyo badan kalsooni kuma qabo wallahi waxyaabaan u tagi waayay dad badan waxay isweydiinayaan inay horta maxaa halka u imaayo Cabdi Malik wallahi asbaab amniya u tagi waayay waxaan isla Ethiopia ku dhiibay maamul goboleedyada wallahi amnaadka qosobta waxa lagu leeyahay ciidamada Ethiopiana tagay marka nin ciidan Ethiopiana ana ma Ethiopian ma ku shiday yani saan ugu tagi karaa أنا يعني دجال ورباهنيات وكردنا رجعت إثيوبيا أنا جوا وضع مالك شخص مساعدنا سيدنا تجمع مامور قبلات أي كتار له حرام هل كانوا بنسل هذا هل كان بأمانة أي نسل هذا برتن وحا أجوه الريبان ما لين كان أجوه الري وحارتي يدنا معايا عندوني إسلام مناسبة أن كجفة يديستو إسلام مناسبة أن عندوني أنا كجفة يديستو وحترتمل حلالا ليلا هذا يا بدر وكنت على شو إيربورت كأجيسة حالنا حد دجن ضد شيء دجن الصومالي بهين يروحوا شقية الصومالي ده وشقية صدق حالنا حلا يقولوا ما لا جراب ما هبا حلا يقولوا لي وحوي يصير فوتبول ما جربه ما ده حدا أي حتى على كنترول قال لي تانكود ما ده حدا أي على كنترول قال لي تانكود وحالنا وحوي يروحوا الصومالي ده ومقدشو ومدارك جديدة ديارها وادين عيسى ديارها وسود دجا بدي ما يقول عليها وحي لا دونا ماشي على سميني وحي لا دونا لسود تشيني وحي لا دونا لساري سومالي با laga saari halka ana xaslay barta waxa way airportka meel ba laga soo galay ninkii odayga ahaa qalbadhaga halkaas ba laga saaray xalane waa meel yaani muxuu ahaa runtii waxa weeye waa meel muxuu ahaa u baahan muxuu ahaa su'aalo badan oo ku socda in laga jawaabo xalane marka waxa weeye miyaanu meel madax banaan ahayn oo dawladdu muxuu ahaa ma meel madax banaan ba mise waxa weeye waa meel ka tirsan muxuu ahaa ay xukuumaddu maamusho ma hanti Soomaaliyeed baa yaa jooga waxa la sheegayaa anigu meesha ma gelin waxa la sheegayaa waxa weeye ajaanibka jooga maxaa diiday marka inay mukhaabaraat oo dhan joogaan xitaa waxa la igu yiri mukhaabaraat baa jooga marka maxaa diidaya inay sirdoonada adduunku joogaan oo halka ay ka maleegayaan wax kasta oo meeshan dalkan lagu curiyaaminaya Soomaaliya حدي ذي ماشاس مدمدو باكوتشرا قرن باكوتشرا حالنا قرن باكوتشرا سفارة ده ويو معي ان يو بعثات يو ضد كان أجانب كوين ميل كنترولان أو لوجان كرو أو لوجلي كرو أو معي لا إلالي كرو لا سمية ما ميل أيجو لح بنايه لصيوم ما معقول ما هو ليه بدي كل هذا مدار معقول ما مركز دونا واحد دونا يسود يشيل واحد دونا كذي قراحية طبعا كده عم ما هي مقدش ما هو نشوفي لبادي تضباط قدام بي مقدش عم قصة مركز ثاني مقدش مع ضوء واحد سويديني وقراحية ثانية وهالقراء هل لنعمة ما جاي يستو قراحية معقول معنيه يود دلال كان قرشي سنة مربر قف قنبل في الغسيل مال مريء أما قاعد يقول قرحينه أما قاعد قرحية أما ضد ضان الله نيه وحنسلا ور مال قرب ما جاي يستو meel qura ma geysato ee waxa weeye sirdoona soo abaabulaya anigu xataa shaki wuxuu uga jiraa ciidamada amisom inta lagu sheegay Ethiopiaanka safaaradeeda waxa halka jooga ciidamada ajnabiga reer galbeedka qurun iyo qashaabiirka isu bahaysta ee jooga Muqdisho kuwaas ayaa maleegaya waxay doonaan maleegay markay doonaan wax qarxinayaan markay doonaan wax dilaya markay doonaan siyaasadda waalaya fargelin ku hay maalin la weyto inta joogay gaari baa ku qarxay Makka Mukarrama waxaan ku sugnaa aaga marka laanta socdaalkan agtoodan joogay marka waxa weeye surinkaasaan ka soo baxnay wana la joojiyay waxa la yidhi halkan waxa weeye way xirantay gaarigu markii uu qarxay gaari dabin laga dhigay si dadka loogu qarxay marka waan ka joognay runtii aad baan uga mahadcelinayaa ciidanka kala ilaalinayay حاجة أو كحرين حاجة أو كحرين إيه كده قاعد يقول قرحي ساعات لبس ساعات كده أجي أنا قلت شو يعني مركا ما ندوتنا قاعد بقى ما لقى شكيات والتي إنه حلقها اللي قالوا معي وعشان عشان اللي عشان كده بس لو شد مكان مكرم أجي ما هي هوتيل بار يعني واحد نسيني وهذا قاعد أنت صور لي جيسة عدة دون يسين الشعب ما هي بمعنى عدة دون يسين أي ما كيف يستطيعوا
حسيني هالقرع ما هل دينا ما هي ودينا عيب بدنا سوقين يوم بعد توبين عنكرتا أمي سوى بين عنكرتا غير قلبي بين عنكرتا قرحية إميشن إن حكومتنا الوقوف فشلية إن محوها عاصمة الصومالية سي أي صوماليا ودن محوها أي فشل نقطه مسكوا إن مدح لقطه هل كان الوقت رجلي إلا فشلي برتنا هدي فشلنتو الصوماليا ودن بفشل مس مركز هل كان الوجوه هي علاش لساري حلقة وقبل بدنا إن بوح لو قسمين لكن هل كانوا ينبع الله صمينين قرحية مركز حوي ورماش وحي نقطة بهالجلين بين نقطتين بهالجلين بين نقطتين محمد عبد الله فرماتش أنا وحويمي ميل بهالجلينة dad muxuu ahay qurniyo qashaabiira oo la shaqeeya sirdoonada caalamka iyo Ethiopia la shaqeeya ayaa isagana muxuu ka agdhow oo mararka qaar kood xubno aan ogeyn oo ka tirsan shaqaalihiisa ka tirsan oo waalayo marka waxa weeye dawla camiiq weyn dawla camiiq sidii maxamed mursi wala fashiliyay isagu muu fashilmay laakiin waa lagu talay inuu fashilmo kacdoon baa dhacay muxuu ahay 2012 Masar كعدون ما كسر كذا ما يصدق بشيء لحد إلا وذا كوني صدق حتى ما كداعي واللو فشلي ثورة مضادة 30 يونيو ولا قصر شقي ولا اسمه هيستي ولا قصر شقي يسمع معها لو فشلي مركان نيكن وحويمي دولة عميقة أبوي هذا مركز تقول عذر داري منه أو ما كدوي منه فلكي فاش حما بيبستا قلبي لا كدوي منه لكن وحوي ما شيء وما شوي وحوي دولة داس يعني يسقون با ما هيمي ما هاي ربيتان شعب كيمي لدوني لو رياقي لكن وحياة بدنا كهوسية مال وحويمي وما ذكر لو شقي سبب مال كلام ما هو ما ذكر لو شقي سبب أيوي مركا اللي بعتذر ولا وحوي وي بدنتها waxaa runtii iyaduna muxuu ahay xusid mudan yani muxuu ahay qofka aad u arkaysid cadow marka uu muxuu ahay uu ku jab ku yimaado waad ka faa'iideysanaysaa jabkiisa qolada mucaaradka la yaab maayo markii hore mucaarad ba ku ahay xukuumaddan inay fursad ay ka faa'iideysato oo ay yani muxuu ahay waxa weeye fursad dahabi ah u tahay iyaga marka way ka faa'iideysanayaan in badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inaanu qalbi dhagax mid ka naxayaan ahayn aanu muxuu ahay wadaninimo ka ahayn أنا ما إسلام نمية سومالي ما كان كل يوم ما ماشي كبابيو بلا كلو شقيا أركا حوي يقولوا وكفى إذا استنوا حوي وكوكني ضد كذا لكن ضد بدني حوي مديدي ضد بدن وحل باننا كشرة أو دولة كشرة أو شعب كشرة رنتي حوي سي يعني ما هي فطرية أو طبيعية عادية أو براءة كشرته أي ما هي واحد ماذا أو أنا ملاك يبارك الكشرة مركا ولكن معارض كانوا سنقضي ضد مركز هرس كم معارض أنا فرصة هوي وفرصة غالية أو كفى يديستين أو لدوني ما هي إنهم ما هي ساكن إن حكومتنا يعني ساكن وما سنتين أنت يداون الساعة لبضة كون هي تضبط بقول دعالة العالم كله شو قبل نتكلم عن إن عبد الملك الموسوعة دون إن الدقيقتان جزاكم الله خير وحوي واحد كهذا إنه واحد دنته إنه يوم كهذا إنه إذن كم في يعني إذن كم ونكسني وحوي ونس حسوسنا وحوي أنا قلنا وان إذن دقيقة أو أنت وحوي واحد كشرة برها بالشدة وركب بان لا سocda waxaad soo dhigaysaan baan la socda waxaad qoraysaan baan la socda marka waxa weeye waa isweydaarsi xagga dhageysiga aad ayaan muxuu haydi ka mahadcelinaya aan hoosta ka xariiqin aan farwa weyn ku qorno kuwa dabal dhilifka ee uu shaqeeya Ethiopia ee uu shaqeeya sirdoonka caalamka ee aynu isla yaqaan reer muqdisho isla yaqaan kuwa aynu muxuu ahay aynu farta ku fiiqno leeno kuwaas u asala waxaan oo dhan u asala waxaan inagu dhacayo oo dhan u asala madaxweynahana halkan waxa weeye waxaan ugu sheegaynaa dhamaanteen inuu sida ugu dhaqsaha badan soo baxo oo dadkii la hadlo sida wax u dhaceen waxa laga yaabaa inuu wax u laaban yahay isaga aynana weyn wax u laaban yahay in isaga ogeey wuxuu la aaminsan yahay buu qabaa marka aynu isagana bal aynu dhageysano wuxuu inoo la yimaado mar kastaba falkan waanu cambaaraynayna fal xun buu ahaa مسؤولية محاية إلا يهد عد كلو أنصارنا من شرطه أنا هاي المدحوينا محمد عبد الله فرماتش مسؤولية ديبستا عبد الكريم شيخ موسى قلب الرجع ديبستيسا مدحوينها الصومالي أي كم مسؤول محن أعذر دار منه لكن بل أينو لجيسنه وح وصو أينو لجيسنه وحلاقي بينه وحصو وده بل أينو لجيسنه وحويش كذا وسيلة نديش جاء وفيل الأدم ملين سيسي أو لكن سكر وده إكرا
والله آد بي أرن كاسي أنا جو عبد الملك الشيخ موسى علدون بي يدم قضي والله يعني وحن تخيله يا دبت أمريو أيا كفكرية ماشي لقينيو سيدا لولا تعامله حرية بس لو قاضنيو وحوي لمشى مركز قاركود بو كدور بداية يعني قارك محوها لودي بي منو فيلنين إن محوها عاصمة الصومالية إلى قديبو لقيا با مامور قبلات هور بركي هورا بقرما ودين طي oo uskaga haynu dhiibo oo ka filanaya maamul goboleedyada wixii soo maray weyn ogeyn dadka say u dhiibi jireen oo iibsan jireen dilaalinta kuwaasina wallahi alcadiim kuwaasina maxkamadeeyo wey in la maxkamadeeyo oo la ka dhana dadkaas oo la ka dhana dadkii dadka dhiibay guud ahaan baynu hadlaynaa dadkii dadka dhiibay aynu la xisaabtano kulligood aynu la xisaabtano dadkii dadka dhiibay waxa weeye dadkii la dhiibay ma aynu soo fagno magacyadoodii dadkii la dhiibay ciidii dhiibtay meeshii loo dhiibay soo qora taxanayaal soo qora إيميل كي عن دين قرأ هل كاي دين قرأ مدو هاي عن مدو دين قرأ عبد الملك أو جاء أو في صوماليا جيميل يقول سو قرأ حكت هذا هيسان وحوي من باهيننا تد كان لو ذاقينا وحوي ورباهن ها وشقيننا سو جود بيا سوبتو حوي كان قرأ معها شكل قلبي دقح معها ضد بدن باكوري ضد بدن باكدم بيني كون وحبا كوتشرا كون كلا كده بشرا كون كلا أي كده بشرا وين دبيسا وين دبقيسا وحوي وان كحنهاي آد بان وحنهاي وحوي الصمدة هلا هذه سدو صمدة معاي بيبستا حريتين هوسة قلبي دقة هاشتاج ياس هلا هذه سدو وحوي حنو هذه سنينا اللهم صل على نبينا محمد معناه هو وحوي ضد بدن هاشتاج وحوي هاي عن سنين dad badan maxaa lagu soo qoraa hashtag muxuu macna sameynaya hadaan qoro waxayna meel iska qorayaan wax macna sameeyay wuxuu sameeynaya marka hashtag wax kasto aad qortid aad ma ku hoos qortid hashtag iyo qoraalka yar xariisinta intii aan ku sheegay dhiibista xariisin hoos qalbiga aad ku qortid waxa weeye aad hadhowtana qof kasto meesha klik gareeya ama taabto riixa wuxuu geenayaa wax kasto lagu qoray dad badan qof kasto soo qora meesha say isugu imanaysa calaamadaas ay isugu imanayaan qof kasto halka riixa wuxuu leeyahay macluumaadkii laga qoray qalbi dhagax aynu wadaagno macluumaad yani si ay qofka ugu fudaato raadinta aynu wadaagno ayaan ka hadin qalbi dhagax aynu noqdo astaan iyo tusaale yani muxuu ahaay aynu kaga wada hadlayno dhibaatada muxuu ahaay haysata Soomaalida Itoobiya muxuu ahaay loo dhiibay Soomaalida maxaa biista ku jirta jeelo gaadeen jeelka ugu liita cabdi ilay dadka muxuu ahaay ku xasuuqo ku laayo ku tacdiibiyo waxa weeye ka ilaahay ba muxuu ahaay kala kulmaya ciqaabtiisa iyo abaalkiisa ilaahay buu kala kulmaya kaasi daalimka maaha iyo wixii la shaqeeyaba daalimka iyo maaha wixii la shaqeeyo walaalayaal intaas ayaan maaha de ku soo gabagabeynaya meel kasta aad joogtaan waad mahadsantihiin waxa laga yaabaa inaan wax ilaaway laakiin haddaan ilaaway waxa weeye saacadaha soo socda ayaan mar labaad ayaan ama qoraal ahaan ama maaha si toosa usoo gelaya oo aan wadaagi doona macluumaadka ereyga live-na yaan la adeegsan ereyga toos la adeegsado yani maxaa taas ku haboon live baan soo gelaya iyo live ku gelaya iyo live ba hebel ba live kelmadda live inaga daayay oo laakiin toos soo adeegsada erey bixinta aynu ku sameeyno Soomaaliga aynu adeegsano qalbi dhagax waxaan rajaynayaa cidda haysa qalbi dhagax muuqaalkan aan ku garab taaganahay qalbi dhagax daawasiya waxaan la hadlayaa cidda maxaa qalbi dhagax ama noqdo maxaa kuwa u shaqeeya Ethiopia وشقية فهمي في Soomaaliga fahmaya iyo qof kasto af Soomaaliga fahmaya qalbi dhagax u gali kara meesha uu joogo muuqaalkayna hadda uu si dareenkiisu muxuu ahay aan gaarsiinay muxuu ahay inaan garab taaganahay Soomaaliina garab taagantahay hawada ka xidhinay muxuu ahay gaarsiiyay waxaan aaminsanahay qalbi dhagax in xorriyadiisa heli doono insha Allah biidin al-kariim waxa weeye waxyaabo badan baa inoo laaban waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu muxuu ahay inuu bayaamiyana waxa weeye waan ka sugi doonaa واد سلامتين وعبد الملك الشيخ موسى علدون كسوغان مقالة مقدشو تاريخ دو كوبية طبنكا دي الحجة كون أفر بقول سيدي صدى نجرية صدح دا بشا سقالة لابد كون إيو تضبية طبنكا مغرب كوهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته